Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Xogwada Channel. Waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad sheekadii aad ku xiisaha badneed ee Aamina Al-Mufti, iyadoo inoo joogtay Aamina oo dib ugu soo laabatay wadanka Urdun, iyadoona qorshaheedu ahaa inay isbitaal ka furto magaaladii ay ku dhalatay ee Ammaan ee dalka Urdun. howlihii diiwaangelinta cisbitaalka iyo fursad u helidiisa uma aynan dhammaystirmin sidii ay filaysay. bilowgii si fiican ayay hawsha ugu socotay ka hor inta aanu khilaafkadiisa ka dhex qarxin Aamina iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka dalka Urdun oo ahaa mas-uulka ay shaqadiisu ka mid tahay ruqsad siinta cisbitaalada. Aamina cabashadeeda mas-uulka ka dhanka ah waxa ay gaadhsiisay wasiirka caafimaadka oo si aad u harsareysa u soo dhaweeyay, una muujiyay inuu muhiimad weyn siinayo cabashadeeda. wasiirka waxa uu soo saaray amar uu ku dalbanayo in dhaqso loo baadho sababta keeni karta in xogayaha joogtada ee wasaaraddiisu caqabad ku noqdo howl ay waday muwaadinad doonaysa in ay dalkeeda ugu faa'iideyso cilmi ay soo baratay oo weliba baahi weyn loo qabo. nasiib xumadeeda koowaad waxa ay bilaabatay markii guddi sharci la horgeeyo shahaadooyinka caafimaadku ay shaki ka muujisay sax ahaanshaheeda shahaadada PhD-da ee iyada ay sidato. guddigani oo ay shaqadooda tahay inay hubiyaan shahaado kasta uu sito qof doonaya inuu ka shaqeeyo caafimaadka ayaa ka codsaday inay dib ugu noqoto Vienna oo ay jaamacadda ka soo cadeyso runnimada shahaadada. Aamina waxa ay og tahay runta ah in aan shahaadadani run ahayn, sida aaweed iyada oo ka cabsi qabta in ceebteedu banaanka u soo baxdo iyada iyo qoyskeeda fadeexad ku dhacdo. waxa ay dhaqso u aqbashay dalabkii guddiga iyada oo cabsi badani hareysay ayaanan dib ugu safartay dalka Austria, waxayna dhaqso ula xidhiidhay Mooshi oo isagana bahyo caashiq la galoongolsanaa intii ay ka maqneed. Aamina marka ay la xidhiidhaysay Mooshi waxa ay ahayd sanadkii 1967. Amara waxa ay ku begneed xilligii Carabta lagu jabiyay dagaalkii iyaga iyo Yuhuudda oo carada dadka Carbeed u qabaan Yuhuudda halkii ugu sareysay maraysay. laakiin iyada taas waxba kama aysan bedelin, si aan gambasho iyo qajalaad midna ku keenin ayaa ay u raadisay jaceylkeedii. caro iyo naceeb ay Carabta u qabtaa ayaa ay dhaansaneed oo ma aysan arki karin cid isirkaasi ku abtirsata. maalin maalmaha ka mid ah oo barafkii bishii 12 da'aya ayaa Mooshi oo la socday oo sikadiisa u joojiyay inta aanan ka talaabin bridge qori ka samaysan oo barismaadkii dhex mari jiray magaalada Vienna. intii uu ka soo horjeestay ayaa uu si dareen leh ugu yidhi, Aamina, ma i guursanaysaa xabiibi? kama aysan fikirin ee inta ay habsiisay ayaa iyada oo laabta ugu haysa waxa ay dhaqso ugu jawaabtay, Mooshigii aan jeclaayo, iminkaba qoys baanu nahay. Mooshi ayaa wuxuu kale u raaciyay, gur rasmi ah oo macbadka ka dhaca ayaan rabaa. sidaa ay ku ogolaatay guurka Mooshi oo weliba u dhacaa hab waafaqsan diinta Yuhuudda. waxa uu guurka ka dhacay macbadka Shimot oo Yuhuudda ku lahayd magaalada Vienna. Aamina guurkeeda awgii waxa ay magaceeda Carbeed u bedeshay Aani oo ah magac Yuhuudda la baxdo. waxa ay noqonaysaa Aani Mooshi Biraad oo magaceedu cusub la raacsiiyey abtirsiintii Yuhuudiga ay guursatay. guri cusub oo aad u qurux badan ayaa ay magaalada Vienna ka degeen qoyskii cusbaa ee Aani iyo Mooshi. waxa uu ahaa guri ku yaala mid ka mid ah cirifyada magaalada oo cagaarka dhulka bannaan ee aadka u ballaadhan iyo dhirta kaynta u eg ee ku xeeran ay aragtidooda nafta ku raaxaysanayso. markii aynan sida Aamino sas ka qabin ciribta ay yeelan karaan ficiladeeda foosha xumay. kurtinkii ay aragto jabaqdii baxdaba waxa ay ahaayeen cadow ku soo maqan. waxa ay aamintay in sirdoonka Carabta haddii uu warkeeda ogaado uu qaarajin doono. taas ayaa ku noqotay sas ay xitaa dharaarta cad ku riyooto. waxa ay gaadhay heer ay ka baqato in ay baxdo iyadoo aan gaari wadan ama keligeed ah oo Mooshi kaxaysan. hurdada ay habeenkii ka bowdo cabsidii ay ku seexatay darteed iyo mararka qaarkood oo Mooshi hurdada ka toosiyo markuu u adkaysan waayo oohinta ay hurdada dhexdeeda iyadoo aan is ogeyn cabsi la ooynayso. marar badan iyada oo soo jeedo ay sabiratay humaaga ruux Carbeed
oo inta uu gudaha u soo galay qolkeeda hurdada bastoolad madaxa kaga saaray. xagaagii sanadkii 1972 ayaa Aamino haatan oo muddo ku soo jirtay duruuftaani qallafsan waxa ay maalin maalmaha ka mid ah sikadiisa wargeys ay ugu aqrinaysay ugu aragtay codsi ay dowladda Israa'iil ka dalbanayso in dadka Yuhuudda ay dalka Yurub degan ay Israa'iil ku soo laabtaan oo waliba si tabarruc ah uga mid noqdaan ciidamada difaaca dowladda Yuhuudda. waxa uu ogeysiisku sheegayay in dhalinyarada Yuhuudda Yurub ka midka ah ee dalabkan aqbala la siin doono mushahar aad u sareeya iyo waliba xuquuq kale oo aad u tiro badan. farxad ayay iskala garan weyday wajixumadii ay cabsida haysay ku beertay iyo culayskii nafsiga ahaa ee saarnaa ayaa mar kaliya ka duulay. waxa ay aamintay in ay heshay xalkii ugu habboonaa ay ku soo afjari kari lahayd xaaladeeda foosha xun ee cabsida farxadda oo dhan ka qaaday. ogeysiiskaas ay akhrisay Aamino waxa uu mar kaliya bedelay xaaladaas ay ku jirtay. reereen hor leh ayaa ku abuurantay. waxa ay gashay rajo ah in nolol cusub oo farxad leh ay iyada iyo Mooshi ka bilaaban karaan Israa'iil. iyadoo aan weli saygeeda Mooshi ku qancin ayaa ay sii bilowday inay ku riyooto iyada oo Israa'iil u guurtay oo nolol aad u harsareysa farxad ku raaxaysanaysa. maalintaas ay bilowday inay saygeeda ku qanciso in ay u guuraan Israa'iil, in uu heli doono baasaboor Israa'iili ah, guri ay isaga iyo iyada ku wada noolaadaan iyo cabsida dishootay oo inta ay ka guurtay aan waaqeeda dib ugu soo noqon ayaa ay sawiranaysay. Mooshi oo markaasi rajo fiican ka qabay inuu shaqo ka bilaabo mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada madiiniga ah ayaa markii hore si aad ah uga hor yimid talada Aamina ee ah in Israa'iil loo guuro. waxa uu sheegay in aan weli si buuxda u dhammaan dagaalkii Carabta iyo Yuhuudda, isla markaana aanan dhammaan weligeedna dhammaanaynin cabsida laga qabo mar kale colaad dhulkan ka dhaco inta uu jiro dhul la haysto iyo shucuubta Carbeed oo dhulkeedu doonayso. dagaalkaasi waa uu sii socon doonaa. baryo aanan habeen iyo maalin kale joogsi lahayn oo hadba inta ay u soo tamar qaadato ay dhan kale kaga imaanaysay Mooshi si ay u qanciso aragtideeda ayaa ay ku dhamaatay in Mooshi uu bedelo go'aankiisa diidmada ahaa. safaaradii Israa'iil ee Vienna ku taalay ayaa uu Mooshi tagay si uu ugu xareeyo warqadiisa caddeynta shaqo isaga oo doonaya inuu ka faa'iideysto baaqa Israa'iil ka soo baxay ee ahaa in dhulkii dib loogu soo noqdo. bishii 11aad ee 1972 ayaa Aamino iyo saygeeda Mooshi duulimaad diyaarad Israa'iil waxa ay ugu soo safreen dalka Israa'iil. soo dhaween aad u diiran ayaa uu lamaanahani kala kulmay Israa'iil. weliba si gaar ah ayaa loo soo dhaweeyay Aani Mooshi oo dabcan in ay Carabiyad tahay uu Mooshi hore u sii cadeeyay. soo dhaweynta ay lamaanahani kala kulmeen gegida diyaaradaha ee Lot 7 waxa ay yaab iyo u qaadawa ku noqotay Mooshi. marba uu ku sigtay inuu u qaato in xaaskiisa ay tahay qof aad muhiim ugu ahayd dalkeeda ama ugu yaraan shakhsiyadeeda. Mooshi waxa uu farxad la muusooday markii ay isaga iyo xaaskiisa indhahooda isku dhaceen. uu ka dhehday farxad aan la soo koobi karin in ay qabto. Mooshi iyo xaaskiisa Aamina waxa ay degeen guri cusub oo ay dowladda u diyaarisay. dhowr maalmood markii ay nasteen ayaa Aamina looga yeedhay xarunta mid ka mid ah hay-adaha ammaanka ee Israa'iil. waxaana la weydiiyey boqolaal su'aalood oo la xidhiidha dhalashadeedii, halka ay ku soo kortay oo dabcan Urdun ahayd, xaaladda qoyskeeda iyo asxaabteeda oo dhan. waxaa laga wareystay sida ay isku barteen Mooshi iyo guurkooda. su'aalahan oo dhan waxay ugu jawaabtay si kalsooni leh oo aanan hakasho ku dhex jirin. waxaa kaloo la weydiiyey aragtideeda la xidhiidha jiritaanka Israa'iil iyo shucuurteeda ku aadan dalkeedii hore ee Urdun. waxaa kaloo laga wareystay Falastiiniyiinta Urdun ku dhaqneed iyo su'aalo la mid ah. waxa ay baadhayaasha Yuhuudda u sheegtay in ay nacab tahay ururka xoreynta Falastiiniyiinta iyo guud ahaan ururada kale ee Falastiiniyiinta. waxa ay ku andacootay in qaladkii ugu weynaa ee boqor Xuseenkii Urdun galay uu ahaa in uu wada dili waayey Falastiiniyiintii Urdun ku nooleed, iyada oo sidoo kale ku celcelisay in ururada gobnadoonka ee Falastiiniyiinta oo ay aad u necab yihiin qowmiyadda Sharkiska. intaasi haynoo joogto qaybtii saddexaad ee sheekadii aadka u xiisaha badneed ee Aamina Al-Mufti.
dib intaan u kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.